Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada Bale Institute of Language and Development Skills, macadka barashada luqadaha iyo horumarinta xirfadooyinka. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay maadada Ingiriiska alphabet. Waxaan ka bilaabeynaa alfabeetada. Capital letter xarfaha waaweyn. Capital letter waa xarfa waaweyn. Capital letter waa xarfa waaweyn. oo ujeedaan waa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. intaas waa ABCD. aan ku celino mar labaad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. intaas waa ABCD oo xarf waaweyn ah. qaybtan hoose waa small letter waa xarfo yaryar. Small letter waa xarfo yaryar. oo ujeedana ayadan waa ABCD oo xarfo yaryar ah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. intaasna waa ABCD oo xarf yaryar ah. Consonants waa shibanayaasha. Consonants waa shibanayaasha. Shibanayaashanu waa ABCD oo dhammaystiran oo 26 xarfood ah laga reebay shaqalada. marka consonants ayaa la dhahaa shibanayaasha. Consonants waxayna ka bilaabanaysaa B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P,